تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنالكيغا اسماء عبدالسلام. هدي اي تاي داودا مركي هوريسي اي اد سو بوقتو جنالكيغا بليز سبسكرايب كنو سار. هداد هوري نولا جوگتينا وقتكم هاسنتاي لايك تانيغا إلاوين. أصحابتيدا عاو waxaan soo qaadanaynaa qiso yar oo ka soo qaadan doono barnaamijka weyn ee Al-Musaamax Kareem. Sida wada ogtihiin barnaamijkan Musaamax Kareem waxaa loogu heshiisiyaa laba qof oo dib dhex yaalo ama mushkilad weyn dhex taalo oo xal u waayay, sidaasna ku kala go'ay ayaa dib loogu heshiisiyaa barnaamijkan. labada qof ka mid ah ayaa codsada inuu imaado stuudiyaha George Qardaaxi ee Al-Musaamax Kareem. qiso walba oo barnaamijkan waxay xambaarsan tahay message. qisadan ayaa waxay ka dhacday wadankaas Maghrib ama Morocco, caasimadiisa Darul Bayda Casablanca. waxayna u dhaxaysaa laba wiil oo walaalo ah oo la kala yiraahdo Mahdi iyo Cabdiraxiim iyo saaxiibkooda oo la yiraahdo Muxsin. wiilashan ninkan arkaysan ee stuudiyaha George Qardaaxi jooga Mahdi, walaalkiis Cabdiraxiim iyo yarkan kale oo maaragtaa lagu casumay barnaamijka oo cafiska laga dalbanayo Muxsin ayaa waxay isku darsadeen ganacsi. waxaa dhacday Mahdi oo ah wiilka hadda stuudiyaha fadhiya cafiska dalbanaya in maaragtaa uu noqday tuug oo xoolihii isku darsadeen walaalkiis Cabdiraxiim iyo saaxiibkiisa Muxsin inuu xadxaday oo uu adigu dambiye badan galay. qisada gudaha ayaan ku ogaan doonaa. alxaasil qisada Mahdi sidaan ayay ku bilaamatay. waxay bilaamatay markii uu walaalkiis Cabdiraxiim uu go'aansaday inuu maaragtaa shirko la sameeyo saaxiibkiisa nolosha ee Muxsin. Cabdiraxiim wuxuu maaragtaa rabay inuu maaragtaa meel weyn oo ganacsi balaaran uu furto, mana uu helin qof ka fiican inuu maaragtaa la shirkoobo Muxsin. adiga Muxsin wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo aamin ah oo maaragtaa adigu Muxsin iyo Cabdiraxiim waxay kaloo ahaayeen dad isku riyo ah oo maaragtaa xagga ganacsiga. Cabdiraxiim wuxuu u soo bandhigay Muxsin inuu maaragtaa la shirkoobo. Muxsinna arrintii wuu ka aqbalay. adigu ganacsigii waa la isku darsaday, xoolihii meeshoodii aad bay u fiicnayd oo maasha Allah bay ahayd, ganacsigooda wuu u kala kacay. adigu ganacsigii markuu hagaagay, Muxsin ayaa wuxuu u soo bandhigay Cabdiraxiim. wuxuu yiraahday sidee u aragtaa maadaama aan rabno dad meesha ka shaqeeya oo aan ku kalsoonahay oo aamin ah, sidee u aragtaa inaan walaalka Muxsin maadaama uu jaamacad soo dhameeyay uu shaqo la'aan yahay inaan shaqo gelino oo meesha ku wareejino oo hantida iyo wax walba aan qasanada iyo meesha furaheeda wax walba farta ka saarno oo u dhiibno, sidee u aragtaa ayuu yiri Muxsin. wuxuu yiri waa soo dhaweynayaa waana okay, sababtoo ah qofna ma diidayo walaalka aan shaqo gelino, qof diidaya ma lahan. adigu sidii ayuu maaragtaa Mahdi ku shaqo galay. waa ninkan stuudiyaha fadhiya oo hadda cafiska dalbanaya. sidii ayuu shaqadii ku bilaabay. haddii uu shaqadii sidii ku bilaabay, waxaa dhacday in Muxsin wax yar kadib uu dareemay inay wax qaldan yihiin oo maaragtaa xisaabaadku aysan sax ahayn oo ganacsigu hoos u sii socdo. adigu Muxsin wuxuu ka shakiyay in maaragtaa uu wax khaldayo oo khiyaamayo nin Cabdikariin oo ah wiilkan Mahdi oo stuudiyaha fadhiya walaalkiisa oo ganacsiga ay isla lahaayeen ayuu ka shakiyay. adigu in yar kadib wuxuu ogaaday inuu Cabdiraxiim bari yahay oo wax dambi ah inuusan gelin, oo ninka wax walba sameeyay oo xoolaha xadxadayay oo maaragtaa lacagta lunsaday inuu yahay Mahdi. ayuu wuxuu u bandhigay Cabdiraxiim. wuxuu yiri Cabdiraxiim walaalkaa buu yiraahday Mahdi aniga adigaba wuuna khasaariyay oo xoolihii lacagtiina asaga lunsaday oo ay ku maqan tahay. adigu arrintii ayuu u sheegay. Muxsin wuxuu u sheegay Cabdiraxiim in maaragtaa walaalkiisa uu arrintii maaragtaa meesha khasaariyay oo maaragtaa uu lacagtii lunsaday oo ninka waxad xadaya oo maaragtaa hantida lunsaday inuu yahay Mahdi.
adugu meeshii markuu ogaaday cabdiraxiim inuu walaalkiis arrintan sameeyey waxaa dhacday inay labadii wiil isdagaalaan. Labadii wiil ha isdagaalaan ma xumee, waxaa dhibka ugu weyn ka yimaaday aabahood ayaa arrintii maqlay oo 70 jir ah oo dhiig kar kusoo booday. Ayaa waxaa ku dhacay aabahood arrintaas uu ka xanaaqay darteed uu wiilkiisa sameeyey in maaragta dhinac uu dhacay aabihiis oo aabahood baralis ka noqday wiilashan. aabahood uu isbitaal yaallo. Nimankan aabahood isbitaal ayuu yaalaa. Xanaaqii uu xanaaqay ayaana dhiigu ku karay. Sidaas ayuuna isbitaal adag ku galay, baralisna dhinac ka noqday. Adugu ninkii Muxsin ahaa dacwo ayuu ku furay labadan wiil oo Mahdi iyo Cabdiraxiin. Adugu ninkan hadda stuudiyaha fadhiya Mahdi wuxuu u arkay maanta inay u tahay fursad barnaamijkan Musaamax Kariim inuu ka dalbado cafis ninkii Muxsin ahaa si uu maaragtaa u cafiyo uu marka horena ka cududaarto oo una cafiyo cafis ka dalbado. Haddana uu maaragtaa ka qaado maxkamad dacwada uu kusoo oogay maxkamadda inuu ka qaado ayuu maanta wuxuu isir barnaamijkan uga faa'iideyso oo ka codso. Adugu Mahdi stuudiyaha waa isaga fadhiya. George Qardaaxi wuxuu weydiinayaa wuxuu leeyahay Mahdi qisadaada ka sheekee, sidee wax yeeshay, maxaa samaysay si mushkiladda loo ogaado oo xal loo helo oo maaragta arrintaada u hagaagto waa inaad dambigaaga qarataa ayaa la leeyahay. Adugu Mahdi wuxuu leeyahay markii ugu horeysay way ugu kalsoonaadeen labada wiil waxayna ii dhiibeen buu leeyahay shaqada, furaha meesha iyo furaha qisnada adu ayay ii dhiibeen. Si tartiib ayaa waxaan u bilaabay buu yiri inaa maaragta lacag u xadxado. wax yar kadib waxaan bilaabay buu yiri inaa maaragta asxaab xun aan la saaxiibo. asxaabtii xume ayaa waxay i bareen buu yiri habeenkii caweyn. marka wuxuu yiri habeenkii lacagta lagu caweynay ayaa tartiib u qaadan jiray aan ku caweynayo aan baararka uga soo caweynayo. si tartiib ah waxaan u bilaabay buu yiri inaa maaragta kala bisto qasnada maaragta meesha inaan kala bisto oo dharka ugu qaalisan ka gato oo maaragta aan ka gato mootorada maaragta wiilasha asaagay wataan inaa mootor ka gato. adugu wuxuu tartiib ayaan lacagta marka hore u bilaabay inaan xadxado. markii dambena waxaa dhacday buu leeyahay ii sheeg inaan maaragta tartiib asxaabtii xumeyd oo aan la saaxiibay oo aan bartay inay ii bareen mukhaadaraadka oo maaragta aan bilaabay markaa wixii ka dambeeyay inaan lacag waaweyn xado oo maaragta xataa dadka ganacsiga meesha yimaado inaan banaanka meesha meherada inaan maaragta aan wax uga iibiyo lacagta jeebka gashto ayaan bilaabay. aduu wuxuu yiri ilaa ay meesha 00 soo istaagtay oo ay xoolihii dhan khasaareen. sidaas ayaan sameeyay ayuu leeyahay. waxa George Qardaaxi wuxuu ku leeyahay arrin xun ayaa samaysay. haa buu leeyahay waana qarsanahay waana ogahay waana ka toobad keenay. marka waxaan rabaa walaalkayga Muxsin inaa maaragta aad oo ii sheeg la heshiisiyo. adugu George Qardaaxi wuxuu leeyahay waa hagaag dacwo ayaan u dirnay aan aragno inuu aqbalay in kale shaashadaas fiir ayuu leeyahay. adugu Mahdi shaashadu fiirinaya. adugu ninkii ahaa Muxsin oo la rabay in stuudiyaha lagu casumo sida aragtaanba wuu aqbalay dacwadii oo gabadha u geeyay warqadda uu ka aqbalay. adugu Muxsin banaanka stuudiyaha ayuu fadhiyaa. waxaa laga codsanayaa inuu soo galo wuu soo galayaa. Muxsin waa wiil aad u bashaasho oo iska faraxsan. waxaa lagu leeyahay Muxsin maxaa filaysaa wuxuu leeyahay waxa uu imid adiga inaan ku arko barnaamijka qabanaysay musaabaqaadka ayaa u malaynayaa. aduu wuxuu ku leeyahay ii sheeg George Qardaaxi maya barnaamij kale oo khayri ah oo fiican ayaan wadaa oo ah Musaamax Kariim ma jeceshahay inaad ogaatid baa layiri qofka kuu yeeray. haa buu leeyahay shaashadaas fiiri ayaa la leeyahay. adugu shaashadu saa u fiirinaya wuxuu arkayaa ninkii isaga ahaa Muuse Filayn Mahdi wuxuu boodayaa ninkan waa u jeedaan reaction ku bixinayo. wuxuu leeyahay maxaa ninkan meesha keenay waa beelow uma imaan. adugu wuxuu leeyahay waa khaa'in see ku aaminteen waa tuug xoolahayga dhan buu dhacay. adugu ninkan wuu xanaaqayaa wuu qaylinayaa. George Qardaaxi wuxuu ku leeyahay isdeji aniga soo iimaan ha bixin stuudiyaha ka bixin soo aniga iimaan ha sida ani iigu timaada iigu ixtiraam. ninkan
muxuu ahaa wuxuu toobad keenay wuxuuna u yimid istuudiyaha warqad buu igu kaa soo dhiibay warqadaas ayaan waxaa rabaa inaan kuu akhriyo ma jeceshahay inaad dhegaysatid mar raba ayuu leeyahay aduu wuxuu ku qancinayaa George Qardax inuu warqada dhageysto barnaamijkan sida caadadiisa ayaa waxay tahay in qofka maaragtay cafiska soo dalbanaya inuu warqad soo qoro oo qofka markaas istuudiyaha la keeno oo la rabo inuu wax cafiyo warqada loo akhriyo aduu sidaas ayaa warqadii loogu akhrinayaa Muxsin wuxuu leeyahay waa ogahay inaa maaragtay amaanadii khiyaamay oo waxa ay aamintay inaa maaragtay igu aamintay inaan noqday tuug waa ogahay buu leeyahay inaa maaragtay meesha iga filaysay meel ahayn aan tagay aduu wuxuu leeyahay biliis waxaan ka baryayaa inaa i cafisid Muxsin waan ogahay inaa adiga iyo walaalkay xiriirkiina saaxiibtinimada inaan xumeeyay waxaan ogahay buu leeyahay wax kastoo maaragta wanaaga oo familkayga dhex yaalay meesha inay hadda ka baxeen hadda waxaan rabaa buu leeyahay si aan u ogaado khaladkayga inaa maaragta aad Muxsin i cafisid oo aad dhahdid musaamax kariim inaa qaadatid ayaa maaragta aan rajeynayaa arrintaasna waa ka toobad keenay mar dambana u noqomayo qofka bilaadankaana wuu khaldamaa khaldama waa ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay Muxsin rabbigeenaba wuxuu saamaxaa adiga anagoo bashara xagee joognaa ayuu leeyahay musaamax kariim ayaa rajeynayaa adoo warqadii inahaas ayaa ku qornayd wuxuu leeyahay Muxsin waa beenlow ninkan buu leeyahay beentiis weeye wuxuu ka baqayaa buu leeyahay dacwada aan ku furay in la xiro ayuu ka baqayaa wax uu soo hanuunay ma lahan adiga George Qardax wuxuu leeyahay Mahdi ninkan wax uu qanco u sheeg ma uu qancin ayuu leeyahay adoo wuxuu leeyahay please Muxsin i cafi waa ka xumahay wax walbo dhacay waxa igu cafisaa aabahay dartiisa oo xanuunsan igu cafi xoolahaagiina waa kuu soo gudayaa waa kuu shaqeynayaa habeen iyo maalin adaan markaan maqrib ku noqono adaan kuu shaqeynayaa biliis waxaan rajeynayaa inaa aan musaamax kariim tiraahdid waa ogahay buu leeyahay nin qalbi fiican ayaa tahay adiga ninkii Muxsin ahaa saa ujeedaan buu iska oynayaa wuxuu leeyahay ninkan nolosheeda ayuu burburiyay ninkan xoolahayga ayuu ku ciyaaray ninkan riyadeedii ayuu maaragtaa riyadeedii ayuu iga burburiyay adiga aniga walaalkiisba meel xun ayuu ninkaana dhigay adiga iska calacalayaa Muxsin xalaqadan waxay ahayd xalaqa aad adag beeheed oo aad u dheer Muxsin muxuu ahaa ii sheeg aad ayuu u murugaysan yahay madaxu ruuxaya wuxuu leeyahay ninkan ma cafinayo daawada adiga maxay kula tahay ma cafin doonaa Muxsin Mahdi yaa si aad u ogaatid qisada dhammaystiro adiga wax uu maaragtaa wuxuu Mahdi calaacalo oo Muxsin baryaba oo George Qardaxina uu dhex galo uu dhaho Muxsin iska cafi si uu ogaado inuu khaldan yahay qofka ku dhibaateeya waxa ugu filan inaa maaragtaa cafisid ayaa ugu filan sidii shalay u aamintay maadaama uu maaragtaa aamin darro isaga sameeyay biliis wuxuu leeyahay iska cafi George Qardaxi adiga waa la cafinayaa أنا بهنيك تفضل إيه شو ده عمري ما حلمت عمري ما تخيلت ان انا غادي ninka Muxsin ahna nin aad u qalbi fiican ayuu ahaa wax walba uu iska ilaaway musaamax kariim ayuu iska qaatay dacwadiina wuxuu yiri waa ka qaadaya George Qardax wuxuu ku yiri dacwadan ka qaad aabahooda xanuunsan isbitaal ku jira adigu qisadan halkaas ayay ku dhamaatay labadan wiilna sidaas ayay maaragtaa ku heshiiyeen sidaas ayayna maaragtaa labadooda waxay ku wada noqonayaan maqrib meesha uu maaragtaa istuudiyaha ku yaalo oo barnaamijka ka dhacayana waa Masar alxamdulilah qof kasta oo maaragtaa dee maantay dembi kaa galay waxa u fiican inaa cafisid wax ka fiican ma lahan cafiskana maaragta waa wax fiican cafiskana qof kasta ayuu u fiican yahay qof kastoo dhib kuu geystay waxaa fiican inaa iska cafisid waxaaba laga yaabaa hadduu qofku dhib kasta uu kuu geystay aad iska cafisid oo aad seexatid adoo qofkaas
qalbigaaga waxba ugu hayn inaad janno saas ku gashid oo ku mutaysatid ayaaba laga yaabaa. adugu barnaamijka hadafkiisi waa la gaaray oo ah in labada qof la heshiisiyo. aad ayay u faraxsan yihiin maaragtaa George Qardaaxi iyo jamhuurtuba. sidaas ayayna maaragtaa xalqadan kusoo xirmatay. labada qofna waa heshiiyeen. maasha Allah aad ayaa loogu farxay. waxaan rajeynayaa asxaabteyda inaa ka hesheen qisada labadan wiil saddexdan wiil qisadooda inaa aad uga hesheen. please haddaa ka heshay qisadan like noo saar, commentiga noo reeb ra'yigaaga. asxaabteyda intaa maaragtaa qisadan qisa lamida ku kulmi doono waa anigoo Asmaaya. waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillaah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. تؤمل أنك يوما تتوب